بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaan ba allaha wadala dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo axada 20ka bisha December 2020 cudurka coronaviruska ayaa ka jira meelo badan oo dunida ka mid ah iyadoo digniinana ay jiraan wadamada qaarna ciidda Christmaska walwal xoog leh ay qabaan mar haddii uu maalmahan si aad u batay Christmaskana dadku ay doonayaan inay isu yimaadaan isku qamaamaan wada ciidaan taasoo dhibaato xoog leh mudan karta laakiin wadamo badan loo sheegay dadku inay guryaha joogaan inay isu dhawaanin bal aynu ku bilowno marka hore dalka Turkiga oo kamid ah wadamada cudurku uu saameynta ku yeeshay waa coronaviruska ayaa isbitaal ku yaala magaalo ku taala dhinaca koonfureed ee dalka Turkiga uu qarax ka dhacay oxygen-ka dadku ay ku neefsadaan oo ah meel xaaladda degdega ee isbitaal ku yaala isla aagaasi dad iyaga lagu sheegay ilaa 9 qofood ayaa dhibatay markii dab xoog leh uu ka kacay isbitaalka qaybta xaaladda degdega ah iyadoo la sheegay guud ahaan dadku isla meeshaba inay ku dhinteen laakiin qof kamid ah 9 qof isbitaal u dhow la geeyay halkaan uu ku geeriyooday wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen cid wax ku noqotay inaanay jirin laakiin baaritaano xoog leh ay jiraan isla markaasina tacsiil loo diray guud ahaan qoysaska dadku ay ka dhinteen maamulayaasha goobta isbitaalku uu ku yaala ayaa waxay sheegeen baaritaan xoog leh inay sameynayaan oo ku saabsan qaraxa dhacay iyo guud ahaanba oxygen-ka dadka ku qarxay taasina ay keentay culays xoog leh oo ah dad cudurka coronaviruska laga daweynayay inay ku nafwaayaan maaha markii ugu horeysay adduunyada marka la fiiriyo goobaha oxygen-ka ama dadku meelaha ay ku neefsadaan sidaas oo kale ay dhibaato uga dhacdo bishii hore ay ahayd isbitaal ku yaala wadanka Romania in qaybta xaaladda degdega dadka aan xaaladoodu fiicnaan lagu hayo oo markaa oxygen-ku uu ku xiraa qaybtaasi ay qaraxday taasina ay keentay 10 qofood oo Romanian ah oo cudurka coronaviruska laga daweynayay inay halkaas ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo waliba dadka dhintay uu ku jiray mid kamid ah dhaqaatiirtii dadka markaa halkaa ku daaweynayay waxaa kaloo jirtay in bishii Oktoobar isbitaal macmala oo la sameeyay oo meel bannaan ku yaala dalka Russia 150 qofood si degdeg ah looga raray kadib markii qarax xoog leh uu ka dhacay oo isla qalabka oxygen-ka ka dhashay laakiin cidi aanay waxba ku noqonin wadanka Turkiga oo kamid ah wadamada saameynta uu ku yeeshay cudurka coronaviruska laakiin loo arkayay inay la tacaaleen mawjadiisii koobaad ayaa iminka wararkii ugu dambeeyay Turkiga waxa ay sheegeen dadka cudurka uu soo ritay dalka Turkiga guud ahaanba inay ka badan yihiin ilaa iyo 2 milyan oo ruux laakiin dadka Turkiga cudurka coronaviruska ugu dhintay inay yihiin 17,161 qof wadanka Mareykanka marka la fiiriyo ayaa waxa saacadihii la soo dhaafay la ogolaaday shirkadda lagu magacaabo Moderna talaalkeedii kaasi oo muddo loo fadhiyay in la ogaado xaaladiisa nabdoon iyo waliba sida uu wax u tarayo talaalkaasi Moderna ragga qaabilsan dhinaca la talinta hay'adda lagu magacaabo FDA oo ah hay'adda Mareykanka ugu qaabilsan xagga cunnada iyo daawooyinka ayaa maalmihii ugu dambeeyayba ka fadhiyay arrinka ku saabsan la socodka iyo ogaanshaha iyo xaqiijinta waxtarka iyo dhibaatada haddii uu leeyahay talaalka shirkadda lagu magacaabo Moderna taasina waxay keentay aqritaankii maalintii Khamiistii inay cod u qaadaan guddi gaaraya ilaa iyo 21 oo 20 kamid ah ay ogolaatay ciddii aanay jirin qofna uu markaasi ka maqnaa taasina waxay keentay in 94% la sheegay in talaalkaasi waxtarkiisa la hubiyay isla markaasina uu yahay mid waxtaraya oo aan wax dhibaato keenaynin dawladda Mareykanku waxa ay ka dalbatay shirkadda Moderna lagu magacaabo ilaa iyo 200 milyan oo doos oo talaal ah iyadoo waliba la sheegay sanadka inta ka dhiman in la heli karayo ilaa iyo 7 milyan laakiin wax soo saarka ay badin doonto shirkaddaasi Moderna oo iyadu la dhisay 2010 markii ugu horeysana ah oo loo ogolaado talaal ay soo saarto waxay xarun weyn ku leedahay magaalada lagu magacaabo Cambridge ee gobolka Massachusetts ee wadanka Mareykanka halkaas oo guud ahaan talaalka laga soo saari doono America marka la fiiriyo cudurka coronavirus ku saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay dhibaato xoog lehna waa uu baday xagga soo ridashada iyo xagga dhimashada iyadoo dadka markaasi cudurku uu ku dhacay guud ahaan Mareykanka ay madaxa la galeen 18 milyan oo ruux iyadoo waliba dadka cudurka u dhintay waa coronavirus ee wadanka Mareykanku ay ka badan yihiin 316 oo ruux marka haddaba la fiiriyo shirkadda Moderna dalbashada America ay ka dalbatay 200 milyan oo doos ka sakow wadamo kale ayaa jira oo ka dalbaday waxa kamid ah dalka Canada oo dalbaday 2 milyan oo la siinayo ilaa iyo bisha Maaris kadibna la soo saarayo ilaa iyo 56 milyan oo doos oo ay ka dalbatay Moderna
sharikadda Moderna waxaa kaloo wax ka dalbaday waddanka Japan oo ka dalbaday ilaa iyo 50 milyuun oo doos. waxaa kaloo sharikadaasi ka dalbaday waddanka UK oo ka dalbaday ilaa iyo 7 milyuun oo doos. waxaa kale oo sharikadda Moderna ka dalbaday waddanka South Korea ilaa iyo 20 milyan oo doos. waxaa kaloo sharikadda Moderna talaal ka dalbaday waddanka Switzerland 7 milyan iyo 500 oo kun oo doos. marka daba la fiiriyo dalbashada la dalbanayo macnaheedu waxa uu yahay in ay doonayaan inay dadkooda talaalaan, taasoo wadamada qaar aysan ka dalbanaynin Moderna oo kaliya laakiin sharikado kale ay ka dalbanayaan. reer Yurub marka loo soo kaco xaggooda waxay ka dalbadeen sharikadan iyada ee Moderna ilaa iyo 80 milyuun oo doos. laakiin reer Yurub waxay yiraahdeen balada u fiirso 80 milyuun markaan dalbano ee talaalka la bilaabo ee la ogaado inuu nabad yahay ama nabdoon yahay talaalka Moderna ayaanu dalban doonaa haddaan nahay reer Yurub 80 milyuun oo kale qaabkaas isku xiga ayaanu markaas wax u dalban doonaa. sharikadahan marka la fiiriyo Moderna iyo Pfizer ayaa Moderna waxa ay tahay talaalkeedu mid u baahan marka la qaboojinayo ama la sii wado goob ka goob la geynayo qabow aan ka badnayn ilaa iyo 20 digrii. laakiin marka la fiiriyo Pfizer iyo BioNTech oo Pfizer ay tahay xagga Mareykanka, BioNTechna ay tahay dhinaca Jarmalka ayaa waxay u baahan yihiin qabow aad xad dhaaf u ah kaasoo gaaraya 75 digrii. laakiin la yiri waxaaba ka sii daran marka la daabulayo ama gaadiid lagu qaadayo ama cid kalaba ha qaadee qaabkii loo qaadi lahaa iyo in la heli karaba qabowga intaasi markaasi la eg. Pfizer iyo BioNTech waxay inta badan ka soo saarayaan talaalkooda meelo badan oo ay ka mid yihiin wadamada Jarmalka iyo waddanka Belgium. marka daba la fiiriyo guud ahaanba xaalka talaalku waxa uu yahay mid quman oo wadamo badan oo kuwa jeebkooda buuran yahay ay dalbadeen, walow qaarkood wadamada waxaystaana ay sheegeen inay aad u saacidi doonaan una kaalmayn doonaan ama u taakulayn doonaan wadamada jeebkooda uu liito maadaama bini aadan uu ku nool yahay talaalna ay u baahan yihiin. dhinaca reer Yurub markaynu fiirino xaaladdu ma qumana marka laga hadlayo arrimo badan oo ku saabsan dhinaca cudurka coronaviruska. dalka Talyaaniga ayaa waxaa la sheegay xaaladii ugu dambeysay ee feejignaanta in lagu soo rogay dalka tan iyo Christmaska iyo weliba sanadka cusub ee 2021 dabaaldegiisa. ra'iisul wasaare Giuseppe Conte ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa yiri waa go'aan aad u adag oo dhib badan laakiin waa laga maarmaan in la isbadbaadiyo maadaama la ogaado arbaaxyadii iyo dhibaatadii dhacday mowjadii koowaad ee dalka Talyaaniga iyo cudurka coronaviruska. Giuseppe Conte waxa uu yiri goobo badan ayaa la xiray oo aan muhiim ahayn, kaliya waxa socon karaya buu yiri dadka shaqada u socda iyo kuwa xagga caafimaad u socda laakiin in la is ilaaliyo oo nidaamyada la raaco. Giuseppe Conte waxa uu yiri dadka reer Talyaani anagu booliiska intaanu u dirno guryahooda ku eegimayaan, laakiin iyaga ayaa laga rabaa reer Talyaani inay mas'uuliyad gaar ah israacaan oo awaamirta dawladda iyo cudurka coronaviruska xaaladiisa ay raacaan. waddanka Talyaanigu waa waddanka koobaad ugu dhimasho badan reer Yurub oo dhan marka la isku duubo, waxaana ka dhintay dad ka badan 68,000 oo ruux waddanka Talyaaniga. marka daba la fiiriyo wadamada reer Yurub madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa isaga si gaar ah loo gooniyay muddo 7 ah kadib markii laga arkay cudurka coronaviruska. laakiin raggii uu la hadlay, raggii uu la shiray, raggii uu wax la cunay ee reer Yurub iyo kulankii ka dhacay Brussels ayaa rag badan waxay go'aansadeen in iyaga laftoodu ay markaas gaar isu gooniyayaan iyadoo weliba cudurka aan laga arkin. cudurka waxaa laga arkay oo kaliya ra'iisul wasaaraha waddanka Slovakia oo lagu magacaabo Igor Matovic, kaas oo isagu la kulmay madaxweyne Emmanuel Macron. markii laga eegay cudurka ayaa laga arkay ra'iisul wasaaraha Slovakia isagana waa la gooniyay. laakiin waxaa jira rag kale oo ra'iisul wasaareyaal iyo madax kale oo isgooniyay kuwaas oo aan cudurka laga arkin laakiin la kulmay Emmanuel Macron. waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha waddanka Portugiiska Antonio Costa, waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez, waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha waddanka Belgium oo isaga lagu magacaabo Alexander De Croo. waxaa kaloo kamid ah ra'iisul wasaaraha waddanka Luxembourg Javier Bettel iyo weliba madaxa golaha reer Yurub oo lagu magacaabo Charles Michel. raggaasi dhammaantood waxay noqdeen inay isgooniyayaan kadib markii Emmanuel Macron ay kulan toddobaadkii hore kula yeesheen magaalada Brussels. waxaa kaloo isgooniyay ra'iisul wasaaraha waddanka Faransiiska Jean Castex oo isagana ay madaxweynahooda kulmeen. dhammaan raggaasi waxay yihiin kuwa la kulmay iyagu Emmanuel Macron, taasina ay keentay iyadoo cudurka aan laga arkin inay isgooniyayaan. afada u dhaxda madaxweynaha waddanka Faransiiska iyada lafteedu way isgooniyeysay laakiin cudurka lagama arkin. marka daba la fiiriyo guud ahaan reer Yurub dadaal xoog leh ayay ku jiraan, mas'uuliyad ay saarayaan taasoo tusaale wacan u ah bulshadooda inay ku goobaabiyaan oo ay u sheegaan inay dhibaatada iyo dharbaaxada cudurka coronaviruska ay ka fogaadaan. ra'iisul wasaaradda Jarmalka Angela Merkel shirka way ka qayb gashay laakiin sankii afka ayaa u xiraa.
laakiin iyada lama gooniyeynin reer jarmalna waxay u sheegtay inay ciidda kirismaska ka joogaan iyo weliba sanadka cusub markii la arkay cudurka coronaviruska sida aadka ah ee ugu fidiya guud ahaanba waddanka jarmalka marka la fiiriyo guud ahaanba fiditaanka cudurku faafayo ayaa waxaa loo eedeeyey dadku dukaamaysiga ay u samaysanayaan xagga kirismaska iyo sanadka cusub ay aad isugu qamaameen meelo badan oo la isugu yimaado taasina ay keentay neeftoodu inay isgaartay kadibna cudurku uu si aad ugu faafay guud ahaanba reer Yurub iyo adduunyada kale UK marka la fiiriyo ayaa waxa ra'iisul wasaare Boris Johnson uu ka dhawaajiyay xagga England iyo waliba amuuraha laga hadlayo oo ah qaabka iyo sida loo sii badinayo feejignaanta oo awal joogtay heerka saddexaad in la geeyay heerka afraad taasoo loola jeedo markii la arkay cudurku si aad ah inuu u faafayo 32 council ee magaalada London waa ay kamid yihiin goobaha sida aadka loo sheegay dukaamada aan muhiimka ahayn iyo becsharada dhammaantoodba albaabada in la isugu dhufto iyadoo waliba iskuuladu ay furan yihiin laakiin dadka shaqeynaya oo muhiimka ah mooyaane aan la soco karin oo lagu taliyay in guryaha la joogo la ilaaliyo meelo badan oo kamid ah xagga Essex xagga Kent iyo waliba dhinaca koonfur bari England iyo waliba meelo kale ayaa laga dhawaajiyay oo dhammaantoodba la sheegayo in dadku ay ilaaliyaan ay feejignaadaan guud ahaanba qaybaha kala duwan ee UK ka kooban tahay sida Scotland Wales iyo waqooyiga Ireland iyagana nidaamyo kala duwan ayaa la soo rogay oo guud ahaanba ku saabsan xaalka aan qumanayn iyo dhibta xoogga leh ee mawjada labaad ee cudurka coronaviruska waxa lagu bulshada guud ahaan reer UK inay dadaalaan ay islaaliyaan iyadoo ra'iisul wasaare Boris Johnson 24 saac ugu dambeeyay uu ka dhawaajiyay inaanu damacsanayn dhammaan xanimaad buuxdo 100% ah in UK lagu soo rogo laakiin intii dadaalkooda ay dadaalayaan dadka reer UK-na laga rabo inay fakaraan haddii ay tahay guryaha la tegayo oo aad loo yareeyay iyo haddii ay tahay goobaha kale ee bannaan ee la isugu imanayo oo iyagana si aad loo yareeyay ujeedku waxa uu yahay in la is ilaaliyo oo la feejignaado iyadoo la isku raacay mawjada labaad ee cudurka coronavirusku inay ka qatarsan tahay mawjadii koobaad maadaama qababo xoog la galay oo ilaa bisha Abriil la filayo xaalku inaanu qumanaan doonin viruskuna uu si aad ah ugu faafo hawada aadka u qabow oo markaas dhibaato xoog leh ay jirto dadkuna ay guryaha ku wada jiraan oo isku neefsashada iyo wada joogga laftiisa uu dhibaato keenayo waa waxa badinaya cudurka coronaviruska sida ay qabaan dhaqaatiirta iyo saynisyahanada kala duwan ee adduunka haddaba sharikadaha kala duwan ee soo saaray ee la ogolaaday iyo talaalka laga bilaabay xagga UK iyo xagga Mareykanka iyo dalbashada ay dalbadeen adduunyada talaalada iyo marka talaalada la bilaabo ayaa waxa la eegayaa waxtarka talaalada waxyeelada talaalada iyo guud ahaan xaalku sida uu noqdo balse looba jooge maalmaha soo socda iyo wixii marka warar ay ku soo kordha guud ahaanba cudurkan aafeeyay adduunka sanadka ku dhan ee coronaviruska marka hadaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ay cudurka coronaviruska waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leighton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo waliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana laga xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana kuu soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah